kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal kale subscribe inoo saar channelkan haddii ay tahay markay koowaad aadna soo booqatay laagare muuqaalkan iyo muuqaalada ka dambeeya waad mahadsantihiin si toos ayaynu gudagelaynaa muuqaalka iyaga maanta haddaba fartuun habi iyo saygeedii hore ee dhowaan ee shaaca ka qaaday in ay kala tageen oo ay isfureen ayaa dib u midoobay islamarkaana soo gebagabeeyey xurguftii dhexdooda ka taagneed. haddaba fartuun habi waxay ka mid tahay hablaha soomaaliyeed ee aadka social mediaha ee laga yaqaano, waxaana iyada saygeeda waxa ay mar waliba kasoo muuqan jireen muuqaalo kala duwan, inkastoo saygeeda sidoo kale uu aad markaasi marka la eego tirada muuqaalada ay iskala soo muuqdeen waxoogaa iyada ayaa ku badan dhanka videoyada. haddaba reerkan soomaaliyeed ee dhowaan burburka uu soo fod saaray ayaa imika dib u dhismay. alla subxaanahu watacaala ayaan u rajeynaynaa oga baryaynaa in reerkaasi uu noqdo midkii sii dhisnaada. sidoo kale qoysaska soomaaliyeed lamaanaha khilaafka dhexdooda ka taagan yahay amaba nolosha isku fahmila, waxaan rajeynaynaa in alla subxaanahu watacaala dhexdooda isfahan, islaax iyo wanaag inuu dhexdooda ka dhaliyo oo uu dhigo. haddaba aynu u dhaadhacno aan dib ugu noqono duluucdayada. haddaba fartuun habi sida aad la socotaan waa gabar soomaaliyeed lamid ah gabdhaha soomaaliyeed ee asluubta iyo dhaqanka wanaagsan leh. sidoo kalena barteeda youtube-ka ayay kusoo bandhigtaa waxyaabo kala duwan. dhowaaneed markii war dhegaha bulshada aada markaasi ay oga naxeen, inta badanna dhegaha bulshada ay u adkeysan waayeen, ay la wadaagtay oo reerkaasi uu kasoo yeeray kuna aadan in ay kala tageen ninkeedii sanka amaba cabsalaan sanka, kaasi oo iyadu ay sheegtay in gebi ahaanba xiriirkoodii uu soo ilaaday oo ay ku heshiiyeen in ay laba jiha u kala jeestaan ama ay kala maraan laba wado. arrintan ayaa qaar ka mid ah dadka social media adeegsada intooda badan si aada cambaareen iyo eedeen dusha ay uga tuureen reerkaasi dumay, halka ay jireen dad badan oo ku eedeeyay arrimo la xiriira youtube-ka oo inta badan social mediaha oo ay sheegaan in sababta ugu weyn reeraha ay u burburayaan waayada dambe la sheegaya in noloshii private-ka ahayd ay kusoo biyashabatay in public ay noqoto oo reerihii waayadan dambe social mediaha ay si xoogan u qabsadeen. sidoo kalena furiinka waayadan dambe uu noqday mid khayrul caadi ah oo wax iska caadi oo social media waagii baryaba la shaacinayo in reer hore leh ama family hore leh oo dhisnaa uu burbur soo gaaray. allah ayaanu ka magan galnay dhibaatadaasi iyo dhibaatooyinka kale ee ka mid ah musiibooyinka inta badan caalamka ka socda waayadan dambe. haddaba qoyskan soomaaliyeed inta badan aada moodo in aysan la mid ahayn qoysaska soomaaliyeed marka la eego dhanka social media. lamaanaha inta badan social media kusoo shacbaxay soo gudbinta muuqaalada kala duwan, iyaguna si lamaanaha usoo fariista. haddaba lamaanahan waa lamaano run ahaantii ku dayasho mudan, qadarinna mudan. waa lamaano marka la eego gabadhan iyo saygeeda ixtiraamka iyo wanaagga ka dhexeeya, isfahanka ka dhexeeya iyo isqadarinta ka dhexeyso. dad badan ayaa la ashqaraaray oo afka gacanta saartay markii ay soo gaadhay akhbaarta ku aadan in reerkaasi gebi ahaanba uu soo afmeermay, inkastoo alla uu imika dib u dhisay gurigaasi dhowaan laga soo sheegay war aanu kheyr ahayn. waxaan rajeynayaa in reerkaasi uu sii dhisnaado. haddaba marka isbarbardhig lagu sameeyo dhalinyarada kale ee social media iyagu si lamaanaha ugu soo fariisto, lamaanahan waa lamaano run ahaantii aada uga gedisan marka la eego habdhaqanka, marka la eego waxyaabaha anshaxa oo iyagu ay aada u ilaaliyaan marka ay isgaarab fadhiyaan oo muuqaal ay soo gudbinayaan. inta badanna waxa ay gabadhan sheegtaa in faamilkeeda uusan ku badnayn social mediaha oo mar walba iyada iskeed uun ay social mediaha maadaama ay tahay aalad laysku wada arkay waayadan dambe iyadu kusoo gudbiso wixii macluumaad ee faa'iida wanaag ah oo dadkuna ay u baahan yihiin oo ay la wadaagi lahayd sheekooyinka nolosheeda ku saabsan iyo waxyaabaha kale oo ay dadka uga faa'iidinayso. midii laba cidda ay markaasi wax ka faa'iidi karto ama ka kororsan karto. haddana inkastoo aynu ku ognahay wanaagaasi faraha badan iyo sidoo kale in dhibaatada social media waayadan dambe reerkan alla subxaanahu watacaala uu ka fogeeyey, laakiin haddana furiinkaasi ayaa waxa ugu weyn ee aadka dadku ay la yaabeen.
iminka reerkii waa uu isku soo laabtay waan ayaa ka dhex socotay lamaanahan soomaaliyeed labada qoysba sida wararka aynu ku helayno hooyada gabadha iyo aabaha wiilka labada dhinacba xaggii xaggaba waxaa jiray heshiis hoose iyo isu imaatin iyo kal fadhiyo shirar kala duwan iyo kulamo markaasi gaargaar ah oo la doonaya in lagu dhameeyo waxa ay isku hayaan labadan qof iyo waxa ay kala tabanayaan haddaba iminka reerkii dib ayuu u midoobay sida aad ka aragteenba cabsalaan oo isna youtube-kiisa happy family kusoo gudbiyay muuqaal uu kaga hadlaya arrintan oo uu leeyahay muuqaalkiisa xiga ama muuqaalka maanta uu baahiyey kiisa xiga waxau noqon doonaa mid isaga oo reerkiisa dhexda kaga jira dadweynaha soo hor fariista akhbaartaasi wanaaga iyo sidoo kale khayrka ah ku jirana dadka la wadaaga cabsalaan waxa uu leeyahay shaydaan ayaa jiray bini aadankana sidiisaba sida aan qaybaha hore usoo sheegnay dumarkana feer qaloocan ayaa laga abuuraa oo haddii la isku day in la toosiyo ay jabi karayso reer welibana waxauu ku dhisan yahay isfahan samir labada dhinacba isu tanaasul dulqaad ixtiraam iyo in iyada oo laga duulayo lamaanaha awlaada dhexdooda taalla in wax walba oo la tabanayo ama la kala tabanayo in lagu soo dhameeyo ama loo tanaasulo sabab la xidhiidho reerkaasi dhismihiisa caruurtaasi mustaqbalkooda iyo kala geyntooda inaysan adduun iyo aakharaba wax wanaag oo markaasi aanu ku jirin ay jirto haddaba sida aynu ognahay dhibaatada furiinka inta badan lagama sheekeyn karo dhibaatooyinka ugu badan ee furiinka waxaa ka mid ah in labada dhinacba stress iyo dhibaato ay soo gaadho awlaadii dhexdooda taalay oo hooyada iyo aabaha midkiiba aada moodo in labada dhinacba ay ku habboon tahay lamaanaha marka ay wada nool yihiin haddii ay noqon lahayd in awlaada koriinkooda iyo sidoo kale noloshooda in si wada jira looga fikiro daryaalkooda xanaanadooda iyo awlaadii mustaqbalkooda loo dhisi lahaa iyo heshiiskii hore ee lamaanahaasi dhexdooda yaalay waynu ognahay dhibaatooyin intaasi ka badanna waa ay soo gaaraan reeraha marka ay burburaan waxaa la sheegaa in markaasi burburka famili weliba shaydaan keliya in uu ku farxo oo aysan ahayn wax qofa bini aadan ah uu soo dhoweyn karo oo uu aleylahay dhihi karo waa arrin soo dhoweyn mudan ama farxad ah waynu ognahay cawaaqibta ka dhalan karta reerka marka uu dumo ama uu burburo gabdhaheena soomaaliyeed haddee soomaali ayaynu nahay isfahankana mar weliba waxaad moodaa madmadow iyo kala shaki waxyaabo badan ayaa iska jira oo reeraha inta badan loo aaneeyo inay sabab yihiin furiinkooda waxaa ka mid ah kalsooni darada labada dhinacba kalsoonidii labada qof dhexdooda taalay inay waxoogaa markaasi nusqaami karayso sidoo kale waxaa ka mid ah shaki uu yimaado hinaasa ayaa iska jira arrimo kale ayaa jira oo labada qof ay isku qaban karaan oo horseedi karo in ilaa xad furiin ay isla gaaraan waana waxa aan habbooneen reer walba oo dhisan qof weliba oo family ah maanta waxaad ogaataa gabadhan shalay reerkooda markaasi kasoo kaxeynaysay oo adiga ay kugu aaminayeen ehelkooda iyagoo faraxsan laabtooda ay furan tahay oo reerka ay u guurinayaan gabadha ay aada ugu faraxsan yihin kuna kalsoon yihiin ayay markaasi gabadhaasi bixiyaan waxaad ogtahay mas-uuliyadda adiga ku saaran in ay tahay in wixii alla xaggiisa ka yimaaday oo qadar mooye in inta karaankaaga ah in aad dadaasho ay qurux badan tahay in mar walba aad ka shaqayso sidii reerkan u wada joogi lahaa wadajirkiisii sida gabadhaasi tabashadeeda aad ku xalin lahayd iyo cabashadeeda dhan walba ha noqotee waana waxyaabaha reeraha soomaaliyeed looga baahan yahay in udub dhexaad ay u noqdaan waad mahadsantiin khiyaarey subscribe inoo saara janalkan sidoo kale laagaray muuqaalkan iyo muuqaalkiisa xiga oo aan rajeynaya inaan hawada dib ugu soo noqon doono waad mahadsantiin